waxaad arki doontaa Saciid Cabdullaahi Dani oo ah musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya isla markaana khudbad uu ka jeedinayo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ku sheegaya in uu dalka iyo sidoo kale dadka difaacayo kana shaqeynaya midnimadiisa iyo sidoo kale madaxbannaanidiisa. waxaa ciwaan looga dhigay qoraal ay barteeda ku daabacday mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo qaali lagu magacaabo Qaali Shire. haddaba mowduucaas iyo qodobkaas ayaan rabnaa inaan dul istaagno. soo dhawow muuqaalka si gudbi like share sidoo kale subscribe inoo dheh barteena YouTube si aad u hesho xogaha iyo macluumaadka halkan aan soo gelino. hagaag xildhibaanad Qaali Shire oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ciwaan waxay uga dhigtay waxaad arki doontaan Saciid Cabdullaahi Dani ninka isku soo koobay deegaanada Puntland u maleeya in dal ay tahay Puntland ama dal uu yahay halkaasi aaminsanna in Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay ninka dalka duminaya laakiin aan ogeyn inuu asiga yahay oo kala saarneen in Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale qadiyadda dalka iyo siyaasadda oo khudbad u jeedinaya baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kuna sheegaya ay tiri in uu ka shaqeynayo midnimo iyo dan qaran iyo danta bulshada Soomaaliyeed. haddaba taasi waa been ee waa ujeedo loogu talagalay in uu kursiga ku soo koro. laakiin su'aasha jawaabta u baahan waxay tahay adiga ma dooran lahayd Saciid Cabdullaahi Dani oo musharax ah adiga oo arkaya Xasan Sheekh Maxamuud adigoo arkaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo adigoo arkaya musharaxiinta kale ee xilligan ugu cadcad qabashada xilkaasi mise Dani oo hadda raba inuu dalka ku sii hayo imaaraad dawladda ay fasaxday iyo sidoo kale ninkii ka hadli waayay qadiyadda iyo madaxbannaanida dalka ayaad dooran lahayd. aragtida xor ayaa u tahay qaybta commentiga noogu reeb. mar kale muuqaalka si gudbi like share sidoo kale subscribe inoo dheh barteena YouTube. haddaba Dani wuxuu han ka leeyahay ayaa la leeyahay inuu federaalka qabto maadaama hore ugu fashilmay Puntland oo xildhibaanadu ay yaryihiin uu xukumi la'yahay maamuli la'yahay isku hayn la'yahay shacabka halkaasi ku dhaqan caburin ku hayo dhawaana la helay xog iyo cod uu ku sheegayo in cid kasta oo ka soo horjeesato qadiyadda Puntland in tallaabo laga qaadayo waana idin shidi doonaa waad daawan doontaan muuqaalka Dani uu ku handadayo shacabka deegaanada Puntland. haddaba xildhibaanada ayaa waxay tiray shacabka Soomaaliyeed waa inay kala ogaadaan qofka danta iyo dalka ka shaqeynaya iyo kan raba in uu dalkooda iibsado iyadoo ula jeeda Saciid Cabdullaahi Dani. haddaba waxaan idin maqashinayaa cod sir ah iyo xog muhiim ah oo aan helnay Dani oo sheegaya in qof kasta oo reer Puntland ah muwaadin Soomaaliyeed ah oo taageera dawladda ka soo horjeesta qadiyadda Puntland in tallaabo laga qaadi doono kuna hanjabaya in nafta la dhaafin doono. wuxuu leeyahay waxa uu noqon doonaa mid ka shalaaya tallaabada uu qaado taas oo u dhiganta waa lagu dilayaa oo cad ah. aan dhigaysano inaad reer Puntland tahay oo garwadeen u noqotid ra'yi Puntland ka duwan macna gaar sameyn ra'yigaaga dhiibo waa lagu dhageysanaya dadkaana xakam noo noqonaya iyo shuruucda dalkaanu leeyahay. Puntland aan u dhasho waxaan rabaa iska sameynaya xagee ku qoran tahay horta masaasa ku heshiina shaqada inaad reer Puntland tahay oo garwadeen u noqotid ra'yi Puntland ka duwan macna gaar sameyn ra'yigaaga dhiibo waa lagu dhageysanaya dadkaana xakam noo waayahay. haddaba Dani miyaa u qalma in shacabka Soomaaliyeed uu hogaamiyo xilli uu hogaamin waayay shacabka kale ee Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada kooban ee Puntland isla markaana la macaamili waayay hogaamin waayay wax ka dhaadhicin waayay xildhibaanada ee ama golaha wakiilada ee maamulkaasi Puntland la yiraahdo. haddaba ninkii ka aamusay qadiyadda Soomaaliya
ninkii la xifaaltamay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya adiga maalin cad codkaada ma siin lahayd haddii aad siisana ma aaminsan tahay in god weyn uu ku ridi doono dadka iyo dalka guud ahaan adiga oo filaysa in uu horumar iyo wanaag uu ka shaqeeyo Siciidani. Salaam calaykum.